maanta insha allahu tacaala waxaynu mawduuceena kaga hadli doonaa nin garsoor ahaayo in badan loogu soo qaadan jiray tusaale xikmadiisa iyo garaadbadnaantiisa awgeed waxaana uu ahaa iyaas binu mucaawiyat almusniy. haddaba iyaas waxa uu garsoor ka ahaa magaalada basra waxaana uu ka mid ahaa taabiciintii. waxa uu dhashay iyaas ilaahay ha u naxariistee sanadu markay ahayd 46 hijriyada waxaana uu ku dhashay meel la odhan jiray yamaama halkaasoo ay kasoo guureen isagiiyo qoyskiisu markii uu dhashay kadib oo ay u guureen magaalada basra. xaggaasaanu ku barbaaray oo uu wax ka bartay waxaana uu dhowr jeer ku noqnoqday magaalada dimashq xaggaasoo uu cilmiga ka qaatay ciddii uu kasoo gaadhay asxaabtii nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo taabiciintii waaweynaaba. waxaana ay soo ifbaxday garaadbadnaantiisu isagoo weli dhalinyaro ah halkaasoo uu cilmi aad u fara badan uu bartay ilaa iyo heer uu macallin noqday ay dadku cilmiga usoo doontaan ay ka bartaan isagoo weli yar oo aan 20 jir gaadhin. dadka uu dhigayaana caruur iyo ciroolaba isugu jireen. haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa soo booqday magaaladii basra cabdilmalik ilmarwaan intaanu khaliif noqon weli waxaana uu arkay iyaas oo ah weli nin dhalinyaro ah oo aanu garhka u soo bixin oo ay dhabarkiisa ku tukanayaan 4 nin oo waaweyn oo kamida quraadii. markaasuu yidhaahday isaga oo yasaya miyaanu ku jirin ragga waaweyna garhkaale cid tujisa marka ay iska horraysiinayaan inankaa yar si uu u tujiyo. inta uu xagga iyaas u jeesaday buu ku yidhaahday isagoo ku jeesjeesaya imse jir baa tahay inankaagan yari. waxaana uu ugu jawaabay iyaas amiirow ilaahay cimrigaaga ha dheereeye waxaan jiraa intii uu jiray usaama bin zayd markii uu nebigu u dhiibay sallallahu calayhi wasallam ciidan ay ku jiraan abubakar sidiiq iyo camar bin khadaab. marka uu intaa maqlay cabdilmalik ayaa uu yidhaahday taqadam hore u soco isagoo uga jeeda waxaa ku horumariyey dadka kaa horraysiiyey waxa weeyaan aqoontaada. waxaana aad u baahay oo fiday inuu ilyaas yahay nin garaad badan ilaa iyo heer ay dadku uga yimaadaan meel kastoo dhulka ka mida si ay u weydiiyaan waxa ay garan waayaan ee masaa-isha diiniga ah iyo aqoonta kalaba ah. waxyaabaha kale lagu xasuustay garaadbadnaantiisa tilmaamayana waxaa ka mid ah in uu kuufa ku noolaa nin dadkiisaga dhigi jiray nin xalaal miirada oo ammaano leh islamarkaana ay dadka aamineen ilaa iyo heer qaar ka mida ay u dhiibtaan lacagtooda iyo xoolahoogaba si uu ugu hayo. qaar kalena marka ay dareemaan inuu wadkoogu soo dhow yahay ay kusii ballamin jireen carruurtooda si uu uga warhayo. haddaba maalin maalmaha ka mid a ayaa ninba waxa uu u geystay lacag si uu ugu hayo. markuu isyidhaahday kasoo qaadana wuu dafirayba waxaana uu u tegey qaadigii iyaas si uu uga soo ashkateeyo arrintan waxaanu uga warramay arrintusay u dhacday oo dhammaystiran. qaadigiina wuxuu weydiiyey miyuu ogyahay ninkaanaad kasoo ashkatoonaysaa inaad aniga ii timaaday. ninkiina wuxuu ugu jawaabay may. qaadigiina wuxuu ku idhaahday haddaba orado maanta iska tago beytolown igu soo dhaqo. markuu ninkii sidaa uga dhaqaaqay yar kadibna wuxuu u tegey qaadigii ninkii kale ammaanada loo dhiibay ee dafiray. waxaanu ku idhaahday waxaan hayaa xoola ay agoonni leedahay oo aad u badan kuwaasoo aan haysan cid kafaala qaata islamarkaana waxaan doonayaa inaan kugu soo wareejiyo ee gurigaaga meel ma uga bannaan tahay waqtina maad u helaysaa si aad adugu uga warhayso oo aad mas-uuliyaddooda u qaato. ninkiina wuxuu ugu jawaabay haa mudane garsoore. isaguna waxa uu ugu jawaabay waayahe waxaad soo noqotaa isaha dambe intaana waxaad gurigaaga uga sii bannaysaa meelaad hantidaa dhigto marka aad ii imanaysana dad xamaalina soo kacayso si ay kuula guraan alaabta. ninkiina waayahay buu ku idhaahday oo uu iska tegey. haddaba maalintii dambe waxa uu yimaaday iyaas ninkii maalintii hore cabanayey waxaana uu ku idhaahday intaad maanta u tagta ninkii waxaad ku tidhaahdaa lacagtaydiisii hadduu ku diidana waxaad ku tidhaahdaa qaadigan kaa soo ashkateynaya. ninkiina uu dhaqaaqay waxaana u tegay ninkii maalintii hore uu lacagtiisa u dhiibtay waxaanu ku idhaahday lacagtaydiisii. markii uu diidayna waxa uu ku idhaahday haddaad iminkabay siin weydo qaadigan kaa soo ashkateynaya. ninkiina markuu intaa maqlayayo intuu dib u joogsaday buu ku idhahday anaa ku siinaya lacagtaadii oo intuu siiyey buu ka raaligeliyey welibana wixii hore. isaguna inta uu ka qaatay lacagtiisii buu dib ugu soo noqday qaadigii si uu ugu mahadnaqo. waxaanu ku idhaahday wuu i siiyey ninkii lacagtiiyo ilaahay ha ka abaalmariyo wanaagaadii samaysay. maalintii kale ku xigtay markuu ninkii labaad u yimaaday isaga oo xamaalintii wada si uu u qaado lacagtii ayaa inta uu qabtay buu xidhay isaga oo kule alla xumida cadowga ilaahayow waxa aad ka dhigtay diintii ilaahay shabagaad ku ugaarsato adduunyada. mar kalena isagoo naftiisa ka hadlaya ayaa uu yidhaahday weligii cidiigamay badan ilaa iyo nin keliyata mooye. markaasina waxay ahayd maalin anigoo fadhiyo kursigii aan wax ku kala xukumaye ku yaalay basra ayaa nin baa ii yimaaday isaga oo ku markhaati furaya inuu beerta uu hebel haysto uu iska leeyahay hebelkaa kale si fiicanna wuu iigu calaamadiyey beertaas. aniguna haddii aan xukumi lahaa si toos ah bay ugu wareegi lahayd beertaasi ninkaas laakiin waxaan doonay inaan imtixaamo ninka markhaatiga ah intaanan xukumin horta. waxaana aan ku idhaahday imse geed
geedii ka koobnayd beertu. Isaguna inta uu in yar aamusay buu yidhaahday imse sanno ayuu qaaday uu garsoor ka ahaa xaggan. Waxaana lagu yidhaahday intaasoo sanno. Isaguna waxa uu weydiiyey su'aalo. Waxa uu yidhaahday mudane garsoore imse loox buu ka kooban yahay saqafka gurigan aynu ku jirnaa. Aniguna maan garanayn inta looxa uu ka kooban yahay, laakiin waxaan gartay waxa uu u jeedo. waxaana uga jeeday maadaama oo aanan aniguba garanayn inta looxa uu ka kooban yahay saqafka, anigoo intaasoo sanno garsoor ka ahaayoo dhankan hoos fadhiyey. Isaguna siduu u garanayaa inta geeday ka koobnayd beertu. Waxaanan ugu jawaabay ma garanayo, adigaana iga saxsan. waanan ka aqbalay markhaatigiisii. waayahay haddaba maanta xaggaasin ku joojinaa muuqaalkeena. waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.